ururka midnimo ka mid ah ururada arrimaha bulshada ee qurbajooga gobolka Togdheer ayaa shahaado sharaf iyo abaalmarino guddoonsiiyay agaasimaha cusbitaalka gobolka Togdheer Dr. Cabdi Suudi munaasabaddan oo ka qabsoontay xarunta gobolka Togdheer oo ay ka soo qayb galeen badiba haldoorka kala duwan ee gobolka Togdheer iyo maamulka gobolka Togdheer ayaa waxay isla meel dhigeen waxqabadka agaasimaha cusbitaalka Burco uu ka sameeyay cusbitaalka weyn ee magaalada Burco waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Xaliimo Xuseen oo ku hadlaysay afka ururka oo ay soo wakiisheen waxaanay ka warbixisay ujeedka abaalmarintan ay ugu garteen agaasimaha cusbitaalka Burco war wallahi hadaan kugu xigaa waxba kula qaban ka abtirsiinta wadaagta waxba kula qaban maayo midnimo wax ku tihiin gobolka Togdheer ku abtirsan taamba wax ku tihiin future-kii dalka tina wallahi qof wali uu iska tagaya halka isdigtaan baa taagantii dagaalamo oo mid noqdo ha isku duulina waxa laga yaabaa agaasimaha wax qabtay inuu berri mid kale ku duulo waraaniga hebel uu kaxeeyo meesha la iga qaado October أنا دوفي يبان أختار كسهر مرة وان استاجي ساسا سهر تاجي يعني باركين كيس قاعد جاي جنتان باركين جاي نقولها قلا إلا ما نهدلين وحوالي نقف كبلي هذا كي وحقبته وحوينا جم ضيين ليلة هاد ليس وحبس ما ينوي بسكرنا يناي thank you very much واد ما هاد صمتي وحبادي قبطي المها يجي بعض حو قبطي بارك الله فيكم وحوالي أوران ما ينو قسم بالله هلكم ما أنت تاجينا وهيدا تاجين intaasi kadib waxa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaasha jaamacadaha Golis iyo Alfa iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ku hadlayay qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer kuwaas oo dhamaantoodba sheegay isbedelka uu ka fuliyay agaasimaha cusbitaalka Burco cusbitaalka weyn ee magaalada Burco waliba markii ugu horeysay agaasime dadku isku raacaan oo la sheego oo la yiraahdo waxbuu qabtay inta haddii wax qabtaan qaar qabtay wala yaab inay jiraan wax soo qabtay laakiin wala maagi jiro marka kulli weyn kornay wacyiga baa isbedelay waxaad moodaa inay hadda wax badan ay gobolka iska bedelay wax badan oo la sheego oo aan jirin way jiraan oo gobolka laga sheego marka dibadda la joogo laakiin aan ka jirin gobolka agaasimaha cusbitaalka Cabdi Suudi oo ah runtii inuu doctor dhalinyarada saaxiibnahay oo lagu xusayo runtii wax qabadkii uu qabtay dunida runtii waxa ku qaalisan in qofka la yiraahdo waa mahadsan tahay oo waxa la qabtay waxa aad qabatay motivation qayb kamid ah ay tahay qofna runtii uu ku dhiirigelinayaa wax badan bay tusaysaa marka runtii waan mahad celinayaa hablaha runtii midnimada reer Birmingham ee sameeyay wax ka duwan runtii waxyaabo waddanka ka jira waan uga mahadnaqayaa waxaan leeyahay sidoo kale raguna sidoo kale waa haweenkii maanta saasman inaguna runtii raguna ay ku daydaan muuqda hospitaalka maanta alxamdulillah wuxuu maray halkiisii ugu wanaagsanaa shahaarada 18 bisha la helayo shaqaale wanaagsan oo waqtigooda ilaashanaya beeshinkii oo loo shaqeynayo mandarkii oo aad looga shaqeeyay qurux badan oo markaad soo gasho ay niyadu kugu degayso waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadkooda ha u saaro wuxuu noqday role model hablahaasi soo xilqaamay ilaa Birmingham ka soo dhiibay alaabta iyo hadiidahana aad u mahadsanyihiin qofka Ilaahay bilaadan u mahadnaqin Ilaahayna waa mahadnaqo qofkeena wanaagsan weyna waad mahadsan tahay aad bad wali waa mahadsan tahay oo waliba dhakhtarku baahiyo badan buu qabaa ayro kale shaqaaluhu deesuud wanaag naga yeeri jiray markaan nimaadno maanta wuxuu noqday cusbitaal dhisan shaqaale cid ka gabanayaan leh shaqadoodii ku filan siftigoodii ilaashanaya lacagtoodii gacanta lagu hayo la ilaalinayo xuquuqdoodii loo doonayo halkay kaga maqan tahay haadihi la xisaabtama qofkii shaqaalaha la xisaabtama ay kulli Cabdi Suudi noqday aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qof dhalinyaro waxa qabtay waana ku hambalay waana ku garab taagan waana ku shaqeynaynaa Cabdi Suudi amaantiisa waa lagu fogaaday waana la wada qiray Ilaahay baana marxaati ka ah waanu wada arkaynaa wuxuu qabtay wax id qarin karaysa ma aha intaasi kadib waxa isaguna u mahadnaqay agaasimaha cusbitaalka Burco Cabdi Suudi xubnaha kala duwan ee ururka midnimo oo u gartay abaalmarintani runtii aad iyo aad maarta ugu mahadnaqaya marka koobaad ururka midnimo ee maanta halkan ugu shafray hadaan nahay baad caafimaadka shahaadadan maanta la siinay maaha mid aan kaliya leeyahay laakiin waa mid ay leedahay bulshada reer Togdheer oo dhan gaar ahaan bahda caafimaadka waxba maanu qabaneen hadaan dhamaantii aanu wada shaqeyn oo bulshada u wada shaqeyn waayo meeshan aanu ka shaqeynayna waa meel dadku wada leeyahay shalay baan berri baan ka tagayaa meel aan ugu leeyahay maaha ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Togdheer oo isaguna halkaasi ka jeediyay hadallo uu ku dhiirigelinayo maamulka cusbitaalka Burco kan waxa ka dhacay laba example ama laba tusaale oo aad iyo aad wanaagsan tusaalaha koowaad oo ah qof shaqadii loo diray ee qaranka u yimaaday ee uu mujtamaca u hayay ka soo baxay iyo bulshadii shaqada loo qabtay
oo u markhaati furaysa qofkaasoo la shaqadii lagu diray waad ka soo baxday. waxaynu caado ka dhigan doonaa haddii allaha awoodda la ogolaado shicib iyo dowladba cid kasta oo shaqadii mujtamaca ay u haysay ka soo baxday inaynu abaalmarino weeyaan. runtii dadweynaha reer Burco waxaan uga baahannahay war qofkii shaqadii loo diray dayacayna sheega. ilaahay baan idinku dhaariyaha qarinina. maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga ee Badcas Burco.